kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen Golaha Wasiirada dowlad goboleedka Puntland isla markaana uu ka soo qayb galay madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Karaash ayaa looga hadlayay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xoojinta amniga, caabuqa COVID-19, xaaladaha gobolada hoos yimaada Puntland iyo doorashooyinka. Madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani oo kulanka shir gudoominayay ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay cayaaraha ka soconaya garoonka Awaare kuwa oo ay ku tartamayaan gobolada hoos yimaada Puntland oo markan heerarkii ugu adkaa maraya. waxaana madaxweyne Dani uu bogaadiyay in la sii xoojiyo cayaaraha gobolada Puntland maadaama ay xoojisay isdhexgalka bulshada, dhiirigelinta dhalinyarada iyo ka qayb qaadashada horumarka Puntland ayuu yiri madaxweyne Dani. agaasinka cayaaraha iyo dhammaan hay'adaha dawladda ayaa madaxweyne Dani waxa uu faray inay mas'uuliyad iska saaraan sidii hanaan wanaagsan ugu soo dhamaan lahaa ciyaaraha gobolada ee ka soconaya garoonka Awaare. Liibaan Cabdi Cali, telefishinka VOS, magalada garoowe.